Bulshoy hoy bulshoy hagarli wada la igasho dadina huro waxaad haysaan waxaad haysaan ergabo huro waxaad haysaan ما شاء الله dadina huro waxaad haysaan hagaagayaan horseed ka haw hawlaha qarankee u baahan hantidu siday ku hagaagayaan horseed ka haw nabadda harsano wataan dalko horumara dad yahow ku hamiya nabadda harsano wataan hanane dalko horumara dad yahow ku hamiya horumarka ballaadhan ee ka hana qaaday gobolka Sana kaliya tamaha amniga iyo isku socodka gobolada kala duwan ee Soomaaliland taasoo ay hirgashay isla markaana hana qaaday ballankii madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo hadbahaadkii markale iyo madaarkii Ceerigaabo boorka laga jafay 7 Maarch bishan 2020 waxa ahayd dhagax dhigaya sidoo kale dib u casriyeynta madaarka magaalada Ceerigaabo madasha madaarka lagu dhagax dhigayay waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka sidoo kale madaxda iyo maamulka shirkadda dhisaysa madaarka ee Ifcom Construction Company shirkadda nashqadaynta dhismayaasha ee Rajo Architect oo qayb ka ahayd hawsha madaarka sidoo kale waxa ka soo qayb galay saraakiil taliyaal ciidan isu duwayaal madax dhaqameed culamaa u diin qurba jooga dhalinyaro haweenaya inta labeentii koofiyada u ah gobolka Sanaag wareyntiiba waxa madasha xafladda daahfurka ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Ifcom Construction Company General Awal Ali Xuseen oo ku dheeraaday ahmiyadda uu gobolku u leeyahay madaarka farxad weyn bay noo tahay inaan ku hadlayo magaca Ifcom Construction inaanu maanta joogno madaarka Ceerigaabo madaxdii gobolku dhagax dhigayso iyo golayaasha qaranku anagu Ifcom Construction ahaan kulay guma cusbin gobolka mashaariicda ugu waaweyn ee dalka ka socota ama dayaxaha noqoto ama qaar kale badan ma noqoto kulay aad baan soo garanaynaa waxa ay tahay Ceerigaabo inaan hormado ahaa waxyaabo badan oo kale gobolka ku soo kordhinaynaa waxaan kaloo idin sheegaynaa inuu ran weyn ku xigi doono insha Allah isna dhisaynkiisu dhameystiran yahay anigu mahadnaqayo injineerada Rajo Architect insha Allah isagana sidii waxaan rajaynayaa insha Allah anagoo face ka gacanta ku hayna in raweygana bilaabi doono hadii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhamaantiin maamulka gobolka mar labaad aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo horumarkii gobolka Noorjiri galbeed uu badan yahay iminka muddo xagga bariga xagga noo soo jeediyo insha Allah waxaan joognaa airportka Ceerigaabo airportkani waa airport shaqayn jiray 7 sano ka hor intaana wuu muddo badan ayuu iminka intii dalku burburay wuu xidhnaa maanta ayay noqotay Ilaahay inuu qadaro in la furo waxaan ugu mahadnaqaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo maareeyaha dowlista hawada waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan faacil noqdo waxaan la joogaa gursida qaranka waxaan la joogaa madaxdii gursida nabadgelyada gobolka
dhammaan waa ku faraxsannahay waxaan la jooga dadweynihii waxaan rajaynaynaa insha allahu shirkaddii dhisaysay oo leedahay ifco construction company waxaan rajaynaynaa in lagu guulaysto muddo dhowna uu furmo biidnillahi alkariim aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqay anagoo maanta oo joogno elboorkan oo aad iyo aad qaali noogu ah meeshaan oo noo joogo meeyarkii iyo dhammaan madaxda deegaankan waxaan ugu salaamay salaamka asalaamu calaykum waxaan leeyahay wixii qurbaha ku nool oo deegaanka u dhashay kaalin weyn baad ku leedihiin dalkan waxaa iskale iyo deegaankaaba dadka u dhashteen haddeenaan magaaladeena inaan qurxin safetigeeda amnigeedana inaan ku hanin gacmehena bay ka baxaysaa marka waxaan leeyahay dhammaan wixii ku nool qurbaha kaalin weyn baad ku leedihiin deegaankiina iyo dalkiina niidi ku haya insha allah waxaan gaari doonaa in horumar weyn maan mas'uuliyiintan halka isugu timi anigoo ku salaamaya mid kasta maskabkeeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu xildhibaanada golaha guurtida maamulka gobolka maamulka degmada taliyayaasha ciidamada qeybihiisa kala duwan agaasimayaasha hay-adda duulista iyo madaarada maanta falilaahi alxamdu waxaan dhagax dhigaynaa waxa weeyaan dib u dhiska madaarka Ceerigaabo oo hadday tahay terminalka qayb cusub iyo waxa weeyaan iyo rehabilitationka qaybtii lagu sameeyay iyo xayndaabka ama waxa weeyaan fenska bedka madaarka oo la sugayo insha Allah biidmillaahi kariim si uu u noqdo mid ilaashan amniga madaarka iyo waxa weeyaan security ahaan marka aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maareeyaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada mar haddii maanta insha Allah biidmillaahi kariim uu noo hirgelayo noo bilow yahay waxqabadkii madaarku insha Allah waxa weeyaan gool barsiyay in airportkii Ceerigaabo oo maanta la dhagax dhigayo oo dib loo habaynayo airportkan sida la sheegay waa 70 sano ayuu joogaa diyaaraduhu maalin dheeli waa ka degi jireen laakiin dib uu xumaaday marka haddeer dib baa loo hagaajinayaa railwayga iyo terminalkiisii iyo dib loo dib habeyn weyn baa lagu sameynaya marka ilaahay baa hadda iska waxaan kaloo mahadnaqaynaa dawladda jamhuuriyadda Somaliland jamhuuriyadda Somaliland oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo maareeyaha duulista waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin wax weyn bay noo tahay maanta inay airportkan loo sameeyo waxaan salaamayaa dhammaan madaxda gobol heer gobol iyo heer qaranba aan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ka wasaaradda hawlaha guud ahaan anagu garoonkan iyo dhisidiisu waajibaad badan baa naga saaran waana soo dhaweynayaa dhagax dhiga maanta madaxda gobolka ay dhagax dhigtay wixii anagu aan waajib naga ahna waan gudan doonaa insha Allah tacaala waxaan ku bogaadinayaa madaxda gobolka sida hagar laanta ah galoonkana xil isaga saaranayo madaxda qarankuba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu mahadcelinayaa horumarka ballaaran oo gobolka uu u soo jeediyay marka maanta oo ay bishu tahay 7 bishii 3 2022 horta aad iyo aad baan u nasiib badnaa anagoo hawlo qaran u joognaa sanadkii hore laascaanood dhagax dhigiina ilaahay qoladii ka qayb gashay baan hayn insha Allah uu dhamaadayna maantana waxaan jecelnahay reer Ceerigaabo insha Allah inuu si khayr leh ugu dhamaado mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo maareeyaha duulista hawada waxa kale oo iyaguna mahadnaq leh maamulka gobolka iyo degmada iyaguna u dhiiraday inta u dib jiray ee raadinaya wax qabadka gobolka iyaguna waan ugu mahadnaqaynaa annaguna waxaan leenahay reer Ceerigaabo maanta la idin dhagax dhigay idin kaale daryeela ka qayb gala guda iyo dibadbaba waxaan leenahay gobolku u haraya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nasiib wanaag iyo farxadba maanta waxa inoo ah inaanu dhagax dhigayno madaarkii degmada Ceerigaabo iyo gobolka Sanaagba madaarkan oo muddo dheer shaqaynayay duruufaha jira awgeed waxa dib inoogu dhigay waa inuu xaal ognayo nabadgelyo xumo horumarkeenu oo dhan waxa hor taagnaa nabadgelyada maanta mar haddaynu cagaa u dhignay insha Allah bisinkii weeyaan kan waa bilow si laakiin mashaariic badan oo horumarka ayaa soo socda waxaynu dhagax dhigi doonaa gurigii madaxtooyada
insha allah isagana waxaynu dhagaxtirnaa wadada u dhaxaysa karinka iyo ceerigaabo waxaynu dhagax dhigi doonaa dekadii maydh insha allah waxaynu dayactir ku samayn doonaa iyana wadada tabca waxa weeye mashaariicdu waxay ku timaadaa kolba sida ay u sugan tahay nabadgelyada gobolka inaynu qacmo adag isugu geeyno nabadgelyada inoo xasishay ayaa ka koowaa waxa la inooga baahan yahay dana yaroo shakhsiga iska jiro nin baa laga yaabaa inuu ila beertaydaba halkan u hayday sidii deerkii jaamacadda naga qabsatay danta shakhsiga markay ta guud timaado waa laga guuraya ama beer ha noqoto ama ceel ha noqoto ama xiraari ha noqoto waxay doontaba ha noqoto dantaa ka horeynaysa madaarkan annagu qaybtaanu ku leenahay waxa weeye inaanu ranweyga wixii ka dhiman dhammaystiroon dayactirno ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daray maariyaha duulista hawada madaaraduna wuxuu xoog noo saaray inuu fensinkii iyo dhismihii aqaladii lagu shaqayn lahaaba uu farta naga saaro shirkaddan noo dhisaysa oo ah shirkada inaan isku cusbayna meelo badan oo gobolka ka soo shaqaysay iyana waxaanu ka filaynaa sida ugu quruxda badan ee madaarkaas ka Hargeysa uu la tartami lahaa inay noogu sameeyaan dadweynaha reer ceerigaabana guushu waxay ku jirtaa wax yar oo agtaada yaala waxa la yiri hallin karo ayaa reer ka dhintaa waxaanu kari karaaba wax badan inaga xidhan wixii meesha ka soo baxada waxa loo baahan yahay inagoo wada tiro isku duuban si airportkaas uu noogu furmo oo Somaliland bagoodon baynu ku ahayne aynu meel bartanka kaga taala noqono marka madaarkaas furmo insha Allah si aynu noqon lahayn inuu qacmo isku soo inaynu ka wada shaqeyno inaynu ku dadaalo insha Allah annagu hore waxaanu soo samaysanay gaadiidkii dabdamiska ee airportkana aanu tala galay annaga iibsanay boodihii biyaa u qaadi laana annaga iibsanay inta hadhay madaarka ranweygan annaga qaadanayna inta kalena hay'adda duulista ayaa iyana dhamaystirtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed baan ugu mahadnaqaynaa oo aad moodo inuu dhishkii xagga galbeedka u jeeday xaggan loo soo jeediyay bariga mashaariic badan oo ballan qaadana waanu haysanaa qaar badan oo wadada ku jira imikana waanu haysanaa laakiin waxay ku xidhan tahay dadaalkeena aan wada dadaalo insha Allah khayr baan idin rajeynayaa waan idin wada salaamayaa dhamaantiin gobolka Sanaag magaalada madaxdiisa Ceerigaabo ayaa markii la dhagax dhigay madaarka magaalada waxa gobolka inta badan lagu hadalhayay saameynta madaarku ku yeelan doono guud ahaanba Soomaaliland taasoo inta badan dadku ay isugu hanaynayeen isla markaana mahad iyo maamuus ay u gudbinayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale guud ahaanba xukuumadda Soomaaliland waa barnaamijkan idin soo gudbinaya isla markaana idin la socodsiinaya shirkadda Marketing Media Group oo qayb ka ahayd safarkii socdaalka dheer ee lagu hawlgeliyay dhagax dhigga madaarka magaalada Ceerigaabo waa hanad Caraale Cayuuni magaalada Ceerigaabo.